The Speaker, Ken Lusaka, has just stepped into the Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaan leenahay akhrinimo wanaagsan. Magacaygu waa Maxamed Faarax Shire. Barnaamijkeena kulanka fadhiga diiran waxaa martino waa gobolkii koowaad ee Garissa County Mudane Aadan waxaan ku falanqeyn doonaa san horey ugu ballaminayba xaalado badan oo county-ga ka jiro eedeymo iyo weliba eedeymalaan iyo weliba xogta rasmiga guud ahaan dalka Kenya iyo inta uu ka warayo gobol nadiif waxaynu ku weydiin doonaa waxqabadkiisii dowladdii ugu horeysay ee isagu geyigan ka hirgeliyey ilaa iyo haatan isbedelada dhacay iyo waxa uu isleeyahay waa uu himiladiisu way tahay sanada soo socota 2022 oo weli kursigii uu sii loolamay wadan nadiif ku soo dhaw koowaad TV-ga Kulmiye. Shukran Shire aad iyo aad baad u mahadsantahay adi iyo dhammaan ragga iyo gabdhaha meesha ka shaqeeyaanba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa fursaddan wanaagsan ee qaaliga ah ee maanta aad ii boqdeen. Waa tahay marka ugu horeyso haddii su-aasha ugu horeyso ku bilaabno ka waran guud ahaan xaaladda dalka ee siyaasadda gobolka iyo weliba adigoo isku soo koobaya siyaasadda ku haatan halkay maraysaa? والله كل با ساعات كور قبتين ودكان هذا أنت مدة صوت أفني أو دمبا سياسة وين أو BBI صادق سنتيم أو كسعتي إلا سمير رفرندم بسعتي أو عاد حسد ولا هاد هذا كل هذا ماشي مع حماري سوال ودكسوني هاي إن محكمة دي مارت يرجو تسهوش عيدة هاد حتى maartay appeal iyo la qaadi hayo oo waxaan meenayaa bisha soo socoto ama bishan dhamaadkeeda bisha kale maartay bilowgeeda appealku dhici doono waa ka warsugeynaa waxaan meenayaa arrinta ayada ayaa wax badan ka soo bixi doona ama aad loo rajeynaa wixii ka soo baxa meeshii siyaasadda waddanka ku soo bixi lahayd marka baa la ogaan doonaa bal sidii wax kala bixi doonaa xisbiyadii iyo wixii kale maartay isbahaysigii wixii dhici lahaa straight forward boo soo soconayna waxaan gelinaa Garissa County siyaasadda Garissa County waxay jirtay in dhawaaleed siyaasiyiin badan ayaa waxay ka hadlayeen fagaarooyin kala duwan ayagoo ka faa'iideysanaya fursado markaasi dadweynaha ay kula hadlayeen nin Major Deqo oo ahaa governor namaha haatan u tartamaya waxa uu sheegay in dowladda haatan mudane Cali Binow Qorane uu ka arrimiyay iyo tii hore adiga ka arriminaysay labadu way waxba islaamin oo labadu way yihiin kuwa dhacso islaaha intaasi si sax ah بسم الله horta waxaan aad iyo aad aan soo dhaweynaa horta majorka waxaan leenahay welcome in horta tartanka la soo galo way fiican tahay majorka aad inaan u dheeraado marabi saaxiibna waan soo ahayn haddana waa soo dhaweynaa in tartanka la soo galo laakiin ahaantii anigu intii aan majorka ka aqaani jiray wuxuu ahaa intaan ka aqaan jiray nin wuxuu ahaa degan oo hadalaha qaabka dare aysan ka dhicin ama hadallo ku fududaanin waan ku aqaan jiray marka hadda haddii uu yiri ani iyo dowladdii horeba waxa tan hadda tii hore waxa ma kala ah kullee horta wax qabadkeena waa dhaamin doonaa insha Allah taala haddaan fursad helno wixii aan ka gaari karno waqti inoo saamaxo laakiin anigu majorka iyo kuwa kaleba waxaan horta ugu baaqi lahaa in siyaasaddan hadda aan ku jirno ay noqoto mid ku dhisan tawaasun iyo hadal macquul ah oo aan isjaraxaynin oo hadallo un maarta macnaha kuraadis iyo dad lagu kiciyo maarta oo aysan naga noqonin maxaa yeelay haddii moogta wixii sidaa lagu bilaabo hadda markaa waxay noqon moogtahay inuu nin kasta iska qayliyo oo maarta oo markaas oo cambaarays iyo wax aan qiimo sii lahayn in markaas ninkaas ku dhaha marka horta majirka saaxiibna waan soo dhaweynaynaa welcome بلينا معناته to the gubernatorial politics لكن بل إنه توازن وهوش كبلاو يكون سدوينا نعم waan ku soo noqonaynaa inaad ka faaloto waxqabadkii iyo isla siyaasiyiintii baan macnaha gelina waxaan isku horumarino waxaa jirtay in isbuucdii laga soo tegay isla mudane aadan bare ducaale xildhibaanka Garissa County oo fagaarooyin kala duwan ka amaanay dowladdaada oo yiri dowladdu waxay ahayd guuleysatay aad wanaagsan shaqooyin fara badan qabatay khaasatan waxa uu soo qaatay barnaamijka caafimaadka oo yiri wuxuu ahaa barnaamij aad wanaagsan laakiin waxa uu yiri nadiif waa fulay ma aha nin qabsan karo oo
maaragtay dabcan suu hadalka u dhigahayay ka looban kara hadda ninka governorka ah oo duleeladiisi iyo eedeymihiisi macnaha bayaamin karo oo kula tahay hadalkaasi hadalku qabto horta shirka waxaa weeyaan walaalkay mudanaha aadan ducale horta mid ugu dadaalayba hadduu horta maanta uu dhahay uu qiray in horta caafimaadkana waliba si fiican uu dhahay anigu waan dhegeysta cajilka isaga improvement weyn inaan ku sameynay health care sector uu sheegay laakiin haddana wuxuu yidhi 5% kaliya baan siinayaa buu yidhi haddii health care sector maya yani 10% macnaha marka horta asaga ba kulley ra'yigiisa weeyaan laakiin waxaan islahaa markii uu yiri health care sector shaqooyin baan ka qabanay inuu sii qiro inaan horta wadanka aaban aan kow ka ahaynba haddana uu markaas uu ku qiyaaso bal shantii uu sheegay waxay shan ku noqoto oo ay 8 ku noqon waysay ama 9 ay ku noqon waysay ama 10 ku gaari waysay asagoo ma noo sheegi lahaa kulley waa qiyaas asagoo qiyaasay qaybihii kalena hadda muu sheegay health care sector muu sheegay ala kulli xaal middan oo waa fulayda horta waxaan anigu aan u qaatay saaxiibkay waxaa weeyaan waa nin weligiisba aad ayuu maaragtay faarooyinka oga hadlaa waxaan u qaatay inuu leeyahay gobolka macnaha yani aad ha u soo baxo oo howlahaas laakiin waxaa weeye waxaan meenay arrintaas hadda mashmaad ducale in fagaarooyinka laga hadlo in goobaha siyaasiyiinta ay ku hadlaan laga buuqo waan u sheegay in tarbiyadaas iyo nidaamka anaga aanan lahayn waa horaan u sheegay waxaan u sheegay muddo hadda laga joogo taqriiban 7 sano umaleynaya in arrimahaas anaga ayna qabaninba oo aan ahayn nooceeda in dabeecaddeenu ahayn dad la xaagto iyo fagaaro la isku cambaareeyo anaga dabeecadna maaha muhiimadda waxaa weeye waliba waxaan rabaa inaad waqti yar isiiso anigu waxaan meenayaa mudane ducale maalin baan waxaan wada fadhinay goob aan isku imaan anagoo siyaasiyiin ah aad buu u hadle wuxuu yidhi sahanka waan ku fiicanahay sahanka siyaasadeed aad baan ugu fiicanahay marka aniga la soo raaco yiri oo ana tala fiican hay marka adigu wuxuu ka hadlayay xisbiyada iyo UDA waxaas ayuu aad uga hadlayay anigu waxaan markii aan soo baxay inaan arkaan rabay laakiin waa fursad uma helin horta wuu sahamiyey Garissa County asaga uu sahamiyey ama raggii aad uu sahamiyey ku jiray 2017 asaga uu sahamiyey Garissa County asagaan afkiisa ku qirtay in sahankii uu ka xumaaday bal uu ka dhicisoobay horta awalan horta anigu waxaan dhihi lahaa mudane ducale kaligiisna maaha iyo ragga kale ee faraha badanba ama western kuwa isku imaada ha ahaadaan ama meel kale isku imaadaanba sideedaba waxaa weeyaan ragga markuu intuu sahamiyo ama talo uu soo goyo haddii taladii ay halawdo horta the first thing waxay ahayd inay soo laabtaan oo shacabka ku soo laabtaan oo shacabka horta ay ka dalbaan apology ama maxay ahayd raaligelin war wixii aan soo qaaday wuu halaabay laga raali ahaada dib baan iskugu noqonaynaa hadda tii ma taalo cambaaro baa la bilaabo iyo cambaarays iyo maxaan ku wada marka horta waxaa aniga aan dhihi lahaa horta raggaas oo dhanba hal nin baan inta ka hor ka dhageystay chief qoryow magaciisa uu yahay oo yiri run ahaantii wixii aan soo qaaday wuu naga halaabay raggaas oo naga raali ahaada dambi baan galay dambigaas madaxu naga saaran yahay halkaa ninkaan arkay marka horta nimankan walaalaha waxaan dhihi lahaa oo mudanahana uu ugu horeeyo horta bal noo soo noqda oo bal raaligelin bixiya maxaa yeelay marka iyada dawlad jirtay oo socotay oo dadka u shaqeynaysa dadweynaha Garissa ay raali ka ahayeen baa lagu soo duulay oo siyaabo qaabdan lagu soo duulay markaas dawladdii kolka lagu sameeyay afgambis iyo wax aan maartay aan fiicneen marka horta bal mudanaha bal midan oo banaanka la isku xagan intuu dib u dhigo bal horta shacabkii uu shalayto maartay uu dulmay ama uu soo hor qaaday wax aan munaasab ahayn horta ku soo laabto oo horta raaligelin ka dalbo yaan islahayn tan naftarkeeda uu ka hadlayo inuu fagaarooyinka maanta dhaho aleelahay cali nadiif baa ka habboonaa kana howlkarsanaa inay soo noqoshato way noqon kartaa laakiin hadda ma tahay howl weyn baa hadda meesha ka dhacday oo siyaabo kale oo ka wanaagsan loo dhihi lahaa marka waxaan dhihi lahaa strategiga hadda naftigeeda waa ficnaan lahayd in mudane aadan waa siyaasi weyn oo Garissa County inuu fikradihiisa uu soo bandhigo sidoo wax u rabo la waxaan ka wadan sahan xun inuu si aadana mar aad ma santa
siyaasaddaada 2022 ayaa markan gelinaa dad badan waxay aaminsan yihiin in aad ahayd governorkii ugu horreeyay Garissa County wax badanna aad qabatay wax badanna qabiyay ka ahaayeen isleedahay fikirkaas waa sax والله هرت الكمال لله يعني هرت كمان الله بأسقناتي محن كودا هشرة نسليه كرا أما أنا وأنا هنا أكاونت قبل من جونا أما دولة كراء هاتو هور ومدعوين كيا أما تو مريكن أما تو يوروبا هاتو هرت وحكابل هرت إسلام هلاي لكن أنا وحن عن كل شيء جاي إن الشقوين عادي عاد أفر بدن عن قبلني ضد كان أي رالك هاين شعب كان وحاس كلا حكومة شعب وينها رجارسة أي هوشة أوتا لا محل قوانين وهنا كل وحنا هوشة وحي كفلو هاي إن ننكستو أو جبنا مركا وإيمانا يو ولي ما هذا فلسفة جيس أسرع وحق ودرها أنا فلسفة جان واقع ودنا وحي هاد هرت إن عن basic services كهردك أنجرسين أديك هوسة يهردك إهلال أديك هوسة محاكم ده وحي هذا دام كوتر يمشتن مثلا حاجة بيها هذا كسوقات بيها هذا جارسة عواد بدن بكجرة. هذا يدخل عوادين بيلان بدن بكجرة. رون أنتي واجهنا وأقول شيء جناي لكن حقيقة وجدتها ورجالس ما أنت دي افتلق هذا يكون شيء جايين 80% مقالن بيوي هيست وحلا قايلنا يروحوها ملايير وولونا أنت بدنا دباتوين سبوتاج يوحلا ميت أضد ما تبي حرة وحاس إنه مسبين أيه وحنا وها ولا سياسة بيها تاول أكسر رجالس وأكسرين سياسة وين بلقلي وعن سو حسوسنا يا لحبرت كمسة وريجين مركي أنا ماشي عن كبحني نوماد هوتيل بعواد بلاودين من ماشي كشقة أي شيء وحوي أنت ماشي كوجت تقول لي جنبي مانوي وأنا مر هوتيل وحوي استمرتي ستيشن كا وحادوير مركي هرتا عباد كاس أو أنت أصلك هرتا ما أنت تجري هرتا واقع إذا مجرين حق تولوين كا 15 بوهول شن 81 بوهول شن 8 عيل بالقضي سجاد إيتلون وحلو سمي rehabilitation أو ولا هجاجي أو مات يعني ولا قلبي مقالوين كبيها لوس الجيلي أو تولوين كاو سب كاونت كتير سنة طبعا هي اللي جري وحنا بقى رجع هذا أو مثلا هايين محن كودها وحلا بقى قوانين سيد ولا الكلمة دقيقة ودرت لها محل قبت لها والوحنا لها إنه إير كل نقطة أما أوصو بارو بيه لوس الجيلي بلان oo maanta la leeyahay waa ka kac raggii soo jiiday oo contract qaatay baa joogan oo baarinka aan soo furnay iyo idaacadii media la socday baa joogay warka dhan waa la hayaa reer Balanbala baa shaahidka ah bal hala wareysto bii la soo jiiday Balanbala oo laga soo jiiday 7 kilomitir maartay oo wabiga hadlay meesha la dhaho ayada Balanbala kamid ah macna example weeyaan يعني wabigan qarkiisa ilaa iyo 8 meel بابيها لو سو جيدو مغالوينك اي مارت اي ku noolaadeen hadlay ba kamid ah hal waristay hal waristo maanta waxa leeyahay wax baa si ka magaalada hara 15 kilomitir biyaha lagu soo jiiday ku taal maarta dhulka samada maarta waxa la ii sheegay sawdka abaqdeera oo halka dhow ah oo markii xaq dhadhab la aada waxa laga soo jiiday biyaha ceel ku yaalo 18 kilomitir xagarbuul sorry xagarbuul abaqdeera naftigeeda sorry abaqdeera waa weey ku taala waa faafi weeyaan marka معناها حق بالبيها أنت سأقول دافع أفرتن water pans باللغة ذاتك مارتي هروين وبيها مارتي اللغة دي ومارت ذاتك مارت حول حول كعبان بقالة هذا مثلا جالس نقول ليه هاي جنريتر كي أنقدني إيو محاكو ده ريبيتيشن اللي سميه مارتي سبينكوم واتي بقالة مال بدن وأدفر بيه جالسيسي marka run ahaantii maanta in magaalada saa waa cabaado aad iyo aad maartay baan wax lagu dhahay tahay hadii dhammaan agabiyadii biyaha ee deegaanada dad ka hadlayso kulli la kaamilo dawladda ay kaamish maxaa ku dhacay maxay tahay way dadka reer baabaa u cabaadayaan kuwa jaara u cabaadayaan kuwa dhaab u cabaadayaan qoloob u cabaadaysa biyaha u cabaadaysa shirka waxaan ku sheegayaa siisaba budgetka county government soo gala laba qayb ka leeyahay waa development iyo recurrent قيمها أول ريكارنتيجا وحكمية maintenance هذا مثلا عيل بادرتي عيل كاس وإن سي continuous لو ضيعتير كاسيتو أو حن أنا وإسليه هي علاش كبده عنده حكمان هيا عاجيه ريكارنتيجا أو ضيعتير كلو تلاقي إن لو سمع إجاب كلا جليس طبعا محلية كلها يبقى عن مالها أنتجها هيدين معايا لي هول
la hagaajiyey hadda مثلا mashruuca ugu weyn ee biyaha countiga waxaan ka qabanay masalan waa huge project weyn oo aad u weyn oo runaantii Ramasani oo dhanba waliba marka phase 2 kiisna wuxuu ahaa in la geeyo dibadbaysay meel la geeyo oo marka la sii gaarsiiyo ijaara wuxuu u baahnaa un lacag yar oo recurrent in lagu sameeyo lagu dhamaytiro marka horta waxaan isleeyahay aniga maintenance la'aan oo weyn baa horta meel kasta ka jirta ma isleeyahay marka lacagihii recurrentiga waxa weyn ayaa meesha ka maqan oo shaqada wadi lahayn xagga caafimaadka in yar aad raali ah su'aashaas u soo noqon rabaa caafimaadka oo waxyaalaha inta badan dad badan ay isleeyihiin ay kugu xasuusan karaan isbedel fara badan baa ka jiray markii dastuurka dalka wax laga bedelay oo countiyadii la sameeyey isbitaalka weyne gaarisa wuxuu adeegi jiray ilaa iyo Mandera ilaa iyo Soomaaliya ilaa iyo dhankan iyo Kitui iyo Tana River buu adeegtay adigu maxaad leedahay waxyaalaha guulaha ee caafimaadka ka gaartay ilaa haatan dad badan ay leeyihiin alaalahay waqtiga nadiif caafimaadku perfect waa maxaad leedahay inta aadan geerin waxaad qabatay waxa kugu dhaliyay gaarka xilkaas kaga saartay horta caafimaadka waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka bani aadamka ma aragtay u baahanayo ayay kamid tahay xayatadiisa noloshiisa aniga run ahaantii marka horta meeshan bilawnay waxaan u imaanay isbitaalkan horta waa referral intaas oo countiyaal oo jiraan ahna uu u adeegaa marka waxay ahayd waxaan u imaanay meel oo confused ah oo isdhexya ahay waxaan garanayaa maalin baan la fadhiistay nimanka meesha odayaasha ka ahayeen takhaatiirtii waxaan ku heshiinay in PGH horta asaga budgetkiisa totally gooni laga dhigaba in bishii lacagtooda oo gooni ah hadda ma soo xusana waxay ahayd ayaga gooni u qaataan oo aan lagu darinba xiltiga kale iyo maartay departmentiga kale lagu darinba intaas marka horta waxooda gooni lacag ku filan bay horta gooni u helayeen oo maartay waxooda u qaadanayeen number 2 waxaan bilawnay referral system oo ambulansyada iyo wixii la midka ahaa iyo paramedicska iyo shaqaalaha oo ayagana run ahaantii aan si caadi aan ahayn oo meel kasta aan geynay ambulansyada kuwa aan soo karaysanay iyo kuwa anaga aan leeyahay oo wardiska la geeyey oo maamadii ku xanuunstay matalan haluuqo uu ag taagan yahay maartay ambulance markaas ku ordaya oo markiiba gaas lagu soo ordaya marka referral system oo aan caadi ahayn in fact marka hadda la leeyahay Garissa County waagaas number 2 baan galnay waxyaabaha aad loo kaalmeeyay waxaa kamid ah referralka oo la sheegay oo run ahaantii aad iyo aad aan sharaf ugu helnay laakiin inta haddana waxaa ku weheleysaa in tuulo kasta ama tuulada isku dhowba ay dispensary ay qabeen oo shaqeynaya isbitaal yar ha yani 16 dispensary baan dhisnay 25 maternity wards baan dhisnay wamid hadda markaan leeyahay walaalkay majadeqow waxaa rabi lahaa in bal tuulooyinka uu soo maro oo uu arko infrastructure ka jiro ilaa infrastructure una guri weyn oo Garissa laga dhisay kelima aha laba theater oo aydan taariikhda noo gashayna waan dhisnay midna balanbala buu ahaa midna Madoogaashu ahaa meeshii lagu qalaha ilaa Garissa kelima ahee waxaan rabnay in tuulooyinkan dadka lagu qali karo u dhaadhaca nacam oo devolution meel kasta u gaaro iyo Madoogaashu waana kii lagu qalay for the first time lagu sameeyey C section lagu sameeyey oo ama mooyinkii lagu kulli aad uma dabagelin laakiin waxaan markii ugu dambeysay waxaan ogaa inuu leeyahay xaaladda sidii hore way iska bedeshay X-ray centers oo casri ah baa waxaan ka dhisnay waxaan ka dhisnay Dadaab iyo Masalani maanta waxaan maqlayaa ma shaqeynayaan waxyaabaha hadda inta badan aan maqlo oo reer Garissa ay ka sheegtaan ama xag caafimaad laga sheeganayo waxaa kamid ah maxaa la dhahaa drugska ama daawooyinka taqriiban bil kasta waxaan aniga u istaagi jirayba inaan hubsado in tuulo kasta ay daawooyinkeeda hesho oo hospital kasta ama dispensary kasta uu daawadiisa hela marka run ahayd maxaa markii isticmaalaysa in adeegaas sida degdega dadka daawooyinka loogu geynay ee haatan aan lahayn inta badan horta waa in shaqaalahan oo hospitaalka caafimaadka ka shaqeeya waa dad professionals ah waa in horta asiisaa dhaqaalahoodii xaqoodii freedomkoodii ayaga mushaarkoodii waxooda aan lagu daahinin waa inay horta feel gareeyaan in ayaga wixii ay leeyihiin you see ninkan ku shaqeynayo hadduu marba dareemaad adiga aad culays ku hayso ama aad awood siinaynin kama helaysa waxaad u baahanta marka run ahaantii loyalty aan caadi ahayn bal anagana aan u muujinay inay shaqeeyaan ayagana waa inoo muujiyeen shacabkana waa u muujiyeen marka horta inta badan waxaan dhihi karaa run ahaantii culayska weynka waxaa naga qaaday oo garab nooga noqday shaqaalihii oo anagana aan garab u noqonay
waxaa jira system hara laga hirgeliyo ahaa inaan xustiin kale moogi dabcan computerka la gelinaya daawada already ay KEMSA ay daawadu ay sii go'ayso systemkaas muxuu ka qabtay muxuu ahaa aad iyo aad buu qabtay macnaha wuxuu ahaa adiga online system oo macnaha yani uu toos ogaanayo daawadii maxaa ka haray maxaa ka maqan iyo goorta ay soo galayso wax oo dhan macnaha wuxuu ahaa system mutakaamil buu ahaa naam marka haddii xagga caafimaadka hadaan soo gabagabeeyo run ahaantii iskama imaanin moogtaa marka leeyahay Garissa County waxay noqotay top in the country wax iska imaada ma ahayn waa wax laga shaqeeyay heed aan ugu talagalnay iyo barnaamij mutakaamil oo socda oo ku dhisan buu maartay wax la marmarinayo xagga tacliinka ayaa waxaan rabaa inaan in yar haddana aan ka sheego annaga horta waxaa nala gudboonaa xagga tacliinta ama la soo aadiyey wuxuu ahaa iskuuladan loo aqaano ECD-ga iyo kuwan vocational training hadda walaalkay baan kusoo qabsanaa mar soo raaliga mar labaad major ما كمل المدي لكن waxyaabihii uu sheegay infrastructure oo muuqda infrastructure muddo hal guri weyn ama laba guri weyn dhismaha waxaan rabaa tuulada bulada hadda oo ku yaala vacation training bal inuu tago oo arko classrooms aan ka dhisnay oo hore aan u jirin 130 ECD classes baa la dhisay oo macnaha wax bartaan oo tuulada oo dhan laga dhisay walibana waxaan rabi lahaa in sawirada qaar la arko oo hadda meeshan aan ku hayo laakiin waqti uma hayno markay inoo ahaan doontaa most yaa intooda badan ECDs-ka oo aan dhisnay caruurta waxay ku dhigan jireen geedo hoostood ama daashiya ama kamooro la abuuray waan imaanay waxaan ka dhisnay guryo casri ah oo weliba badi ay saaran yihiin solar aan u saarnay si caruurta ay habeen maalmo u akhristaan marka dormitories-ka iskuullada gabdhaha guryihii ay saxanayeen bal ninkii rabo inuu horta bal hawlahaas daba galo bal waxa uu filan meel aan sii dheeran oo la saaqa iska dhabar kuwa kale ama hamay jiraan ama huluuqo jiraan saaqa waxaan ka dhisnay dormitory oo ay saxanayeen 150 gabdha yani maalinkan tagnay meesha aan soo furaynay waliba maalinka baasna waan wadnay oo gabdhahan u wadnay yani gabdhaha farxadda ay farxeen reesaaqa ilaa hadda waa ka sheekeen marka waxa weeyaan yani qayb aan wax xagga agriculture beeraha injimadii aan bixinay dawooyinka aan bixinaynay beeraha aniga beeraha tagi jiray beeraha ana markaa intaan u qasdo soo wareegi jiray oo dadka wuxuu baahan soo fiirin jiray wadooyinka oo hadda maanta dad ay ka sheekeynayeen wadooyinka intooda badan wadooyinka tuulooyinka oo dhanba 50 wada oo baan waxaan saarnay isheeg aan marab ka dhignay meelaha qaarna aan meelaha qaar waxaa jira aan isku mari jirinba yani dadkeena unfortunately ilowgooda waa degdeg weeyaan hadda waxaa ka mid ah huluuqo iyo u dhaxayso ijaara meel waxaa jirta la dhaho qura hindi reer masalani bay garanayaan arrinta ayada iyo reer Saudka qura hindi meel lag waxay ahayd markuu roobka daa 3 bilood xirnaan jirtay markuu roobka daa ma isku bari jirinba waxaan ka dhisnay bahal weyn oo wada yani wada adag weyn laakiin kalbad waxay wadato oo weligeed aan dhaqaaqayn inkastoo hadda maanta shay ii sheegay qayb bay ka go'day waliba lama tegin repair laguma samayn marka waxaan rabaa inaan in yar aan taabto waxyaabaha kale oo aan rabo in bal laga yani Garissa ilowga dadka waxa meesha madax iyo dadka qaarkiiba waa la iska hadlaa hadda magaalada Garissa the first fire station oo fire station Soomaaliya dabdamiska ugu horeeyay oo laga dhisay North Eastern Province halkan buu ahaa waa kii yimaada madaxweynaha uu furay waxa kale arrin kale oo la iloobi karin oo run ahaantii hata ayadaba inta ka hor aad iyo aad dawladda sare ay nagu gadhiga waxa ay ku farxday waxa kamid ah meeshan waxa ku yaala police agteeda child protection center yani meel caruurta yarka ah bariga hore caruurta yar la xiro ama la soo qabta dadka way baa lagu dhex tuuri jiray mujrimiinta hadda meeshaas ba gooni baan u hagaajinay anaga u dhisnay oo maxaan kugu dhahaa gooni waxooda ay maat lagu sameeyaa PGH ka halka meeshan hadda isbitaalkan inta shay oo aan ku kordhinay yani ixtiraam leh waxa kamid ah mochariga oo first moch oo yani oo nin kasta hadda maanta inta oo dhanba county sub counties ka lixda sub county kasta waxa ka dhisan oo la ogsoon yahay county offices oo hall wata oo hall dadka moogta ilaa devolutionka waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo rab in la qabto waxaa kamid ah
public participation waxay dhahaan in dadka macaan marka tuulo kasta yani sub county kasta waxaan ka dhisnay bura ha ahaato masaani ha ahaato balba waxaan ka dhisnay sub county halls iyo xafiisihiis iswataan oo sub county ugu talagalay iyo ka oraya away street lights ka aw garis xagee ka baxeen hadda mudane aadan baa shalay wuxuu ka daraad maalinta wuxuu ka hadlayay magaalada wasaqda warantiis away gawaaridii aan turki ka keenay faraha badnaa ee wasaqda qaadi jahay xagee ka baxeen magaalada wasaq lagu arki jirin warantiis hadda magaalada maanta waxaan ku arkay wax cajiib ah marka yani waxqabadka sabab badan waa inaan ku dheeraado mara bisaaxiibka aad ma santahay gabar nadiif in badan baa amsan maanta wuxuu rabaa inuu maaragtay buugaagtiisa kulli wada akhriyo halkaad nagala socotaan waa kulmiye idaacadda kulmiye tv-geeda iyo weliba youtube-ka iyo facebook-ka dhammaan baad si toos nooga wada daawanaysaan barnaamijka waxaa idin xiriirinaya anigu ah maxamed faarax shire waxaana marti noogu ah governorkii ugu horreeyey ee Garissa County mudane nadiif jaamacadan mudane oo usoo noqon doonaa barnaamijyadaadii 5 sano oo wixii la soo qabtay waxaad ka hadlayso rabto inaad dib dadkii u xasuusiso waana kaaga mahad celinaynaa xasuustaasi dheer waa tahay aan ka soo gudubno 5taasi sano inkastoo aan qayb dambe ka soo qaadan karno sanadii 2017kii waxaa jiray isbahaysi sameysmay oo xukunkaagii maaragtay ii sheeg adigu aad khadka kaga baxday isbahaysigaasi maxaa laga baran karaa bay kula tahay maxaa uu saameyn oo bulshada ku yeeshay wallahi horta isbahaysigaas wuu jiray طبعا isbahaysi fiicnaa ma ahayn in abuur ma ahayn marka horeba hadda waxaan aad u faraxsanahay obriyahan dab aan maqlaaya dadka ha lagu doorto waxay yihiin iyo waxa ay qaban karaan iyo shakhsiyadooda ha lagu doorto waa hadal fiican isbahaysigaas ahaantii isbahaysi fiican ma ahayn inkastoo aniga aan isleeyahay wax hadda weyn oo isbahaysi ahaan uu kusoo kordhiyey anugu ma garan kara maxaa yeelay markaan fiiriyo hadda voteska aan ka helay xagga sawdka 9000 votes ayaa baa la sheegay inaan ka helay ninkii aan tartamayna wuxuu ka helay 11000 votes marka the 9000 voteska anigu isbahaysiga hadda waxba hadda inuusan walaas weyn uusan keenin baa ii muuqata laakiin wax xun oo isbahaysiga wuxuu ahaa durbaan laakiin aan dhicin meesha loogu talagalay waxaan u malaynaa aniga run ahaantii 2017 wixii dhacay siyaabo badan oo khaldaad ba ku jira isbahaysiga qayb ka mid ahaa laakiin hadda taasiir weyn muusan lahayn haddana insha allah ma lahaan doono maxaa yeelay dadka hadda waa la ilbaxsidii horma waxaan isleeyahay taasiirka weyn ee qabtay xagga dowladdu ahaa system baa la isticmaalay oo si khalad loo isticmaalay laakiin systemka dee waxaa weeyaan waa to aan loo noqon doonin weeyaan kamana yeelayn in system la isticmaalo cid ogolaanaysa ma jirto mar labaad meeshta waxaan u baahannahay in la sameeyo elections oo macquul ah oo cadaalad ku dhisan systemkana haddee nin laga xiga ma jiro halkaas nin walba waxaa uu sheeg waa intuu orday insha Allah taala waa tahay misleedahay in dadka Soomaalida gobolka degan guud ahaan noocii doonaba hadaba Mandheera ama Wajeer meesha doonto ama Garissa ha ahaatee in loolanka siyaasadeed 2022 dib haddana la isugu soo doortaa qaab qabiili ah wallahi waxaan u maleynayaa shire darsi balaqataan u maleynayaa hadda isbahaysiga inuu faa'iido uusan keenayn haddii nimanka hadda walaalaha ordayeen oo taagan baabada qirahayaan in isbahaysiga lagu fashilmay mudane aadan haddaan ku noqdo saaxiibkay asagaaba hadda la taagan wixii baan ku fashilnay marka isbahaysi lagu fashilmayo ilmaha inuu faa'iido keenayo waxay ila tahay in meesha tan la isku doorto waxqabad iyo nin kasta wuxuu yahay in fact hawlaha daraad uu ku hadlay aadan waxaa ka mid ahaa in dadka la sigsigo in macnaha yani la shaqo oo nin kasta wuxuu yahay arrinta aad bay il fiican tahay maxaa hadda midda kale Soomaalida waxay tahay ama ugu dooro ama aqoon horta meesha tan wax ugu ma jiro nin kasta taariikh buu leeyahay haddaad ahayd businessman حتى مركز بزنس مان هذا هيد وإن لقى درين مكان هذا هيد نين معرفة بالشدة منفعة لها أو معرفة تصبح كل حلا وحكون حلا أو مركز تعرف أي معرفة أبلي معرفة ماشي حداد إم بي سو هانجرتي وإن بينما هذه أنت سنة كوسو جرتي وإن واحد لا يمكن أو درين كلا لكن إم بي هانجري واسكسو أرد قبل عن ربع هنيجي هذا مثلا إن أماننا مجال أنت بدل
laakiin markaan gabarnimada soo galayay nin waxaan ahaa bulshadan Kenya oo dhanba shaqo soo qabtay bangi dhan baa wadankan fikrad baan keenay oo Islamic finance loo aqaano oo lagu meel maray oo naloo qirhaya oo shahaado ay leedahay oo intaas oo caruur oo ay ka faa'iideen ama ka shaqeeyeen intaas oo ummad maartay ay dhaqaale ka heleen oo meel ay ku gaareen marka qofka horta maanta heblo ugu laba dhihi karo waa inaad taariikhda imaataa meeshan marka arrinta sigsigaynta uu sheegaya Mheshimiwa Aadan taasaa ka mid ah in dadka maartay ha oo yani waxa qabad iyo manfaco meesha laga hadlaa aad baa maasantay waxaa jiro arrimo dhulka oo Gaarisa iyo ka dhaxeeyo muxuu ahaa Isiolo waxaa jira kuwa kale dhulka Gaarisa ah oo dadka reer Gaarisa gudahooda ka dhaxeeyo maxaa kaaga aadan aragtidaada adigu arrinta waa muhiim shirye maalin dhaweydna waan ka hadlay in fact waxaan u baa wax ka hadla ana ugu horeeyba oo meel fagaare kaga hadla kadibna waan maqlay iyadoo maartay Mheshimiwa Aadan iyo rag kale ay ka hadlayaan waa loo baahan yahay in arrintaas laga hadlo waa arrin xanuun badan midda Gaarisa dan ku bilaabo مثلا tan Isiolo oo soo noqon doona Gaarisa waa xanuun weyn weeyaan anigu maalinkan waan ka hadlay runtii dad yani guriyooda duminaayo waxay ku mutoon aan la garanayn qof baa maana wuxuu leeyahay ana meesha title u soo qaatay title waa one thing lahaansha meeshana waa yani qof oo meesha deganaa shaqada meel waxaan ka hadlay 15 sano qofkii deganaa meeshaas maxaa title maanta lagu soo qaadanay maxaa ku dhacay oo inta ka hor title oo title maxaa inta muddo ay maxaa sugu deganaa marka Nairobi baan awood ku leeyahay xafiisyahan soo mari karaa oo title soo qaadan karaa iyo intaan imaan iyo booliistan maartay halkan aan dhaxgali oo aan soo kaxisan oo maartay oo guriga duminay waxaas ma socon karto waa arrin dhib badan culays badan way keenay waliba culays aan caadi ahayn ay keenta ayaa halis ah marka aad iyo aad aniga waxaan leeyahay ragga walaalaha warqada ama run ahaadan ama fake ahaadan Nairobi ka soo qaadanayeen oo guriya iyo dad degan dhulkooda ma intaas lama iska dhisanayo ama la xogaayo waxaas meel lagu ma gaarayo bal culays bay keeni waana dulmi ilaahay raali kama aha middan Isiolo tan Isiolo waa hadee arrinta way horeysay ilaa haddana on buuqeeda waan ku jirnaa meel badan waan kaga hadalnay hadda kulay ba arrinta kootna hadda qayb kaga jirta oo koot bay taala qayb kamid ah anaga hadda waxaan meenayaa waxa ugu muhiimsan oo hadda aan arrinta ka dhihi lahayn waa inaan fadhi aan weyn aan la galnaa madaxda reer Isiolo maxaa yeelay meesha tan meel lagu kala guuraayo ma aha intaasoo sanaba intaasoo qarni baa la wada deganaa marka in maanta la dhaho maartay waxaana la soo galay iyo naga baxayo wax soconays ma marka nimankaas ayaa waxaan meenayaa waana ku jirna runtii sidii aan shirada waa la qabtay fadhi horan waa jireen laakiin bal fadhi hadda nihaaya oo ayaga iyo anaga asliidaaska oo xagga aan wada fadhiisano oo dowladda ay nagu sii jirin ay nagu jirin laakiin anaga toos aan wada fadhiisano baa waxaan ila tahay ugu noqon yaa haboon nacam waa tahay gabagabadii barnaamijkeena marayna waxaa jirto kala guur siyaasadeed socodkeeda baa jiro adiga waxaad wax ku maraya siyaasadaadii ka war والله siyaasadayda aniga aad iyo aad baan ugu faraxsan ilaa hadda meesha ay marayso ama dadka niyadda ay u hayaan inaan soo noqono maxaa yeelay waxaana moogtahay waa haddaan wax bilaabi rabaa iyo hadda iyo arka waxaana maaragta waa wax adiga matalan lagu bartay iyo waxaan aan ka hadlayno dadka ayaga xukumaya ma aha yani nin siyaasa meel ka istaagay oo maxaa la qabta iska dhahay arrinta ma reer Garissa County qofka degan Abalatiro Watiro waa garas ma waa meesha ugu shaysa ugu dambaysa maartay iyo qofka degan Danyare ee kan degan Liboy iyo maartay maxaa la sheegay iyo banaani ilaa iyo Damajali ayaa garanay wixii loo qabtay sideed ceel baa laga qoday rama gudda oo dadka maartay ma xawla qtada loo qoday waqtigeena dadka ayaga ah wixii loo qabtay ayaa garanay ma aha aan sheeko iyo haddana maadaya arka arrinta ma marka aruur runtii waxaan aan dareemay ilaahay idinkiisa reer Garissa county inay dadka socday kala garanayeen inayna kala garanayeen aad iyo aadna waan ugu kalsooni baan ku qabaa inaan insha kursi ku soo noqdo daan wana insha Allah mis leedahay xukuumadda hadda jirto wax badan oo nugul ama macnaha baahi ah oo ka jirto oo uga faa'iideysan karto in kursi marwaa soo noqotaa jirto طبعا ما هذا dadweynaha gaarta tafsiirka asaga
haddana inaan sii faraqeeyo wax uma baahnaba dadweynaha Garissa ayaa dadweynaha Garissa County baa arrinta ayada taqyiimka ayada iska leh ayagaa falaqeyn doona cidda ay soo ceshin doonaan iyo waxay u soo ceshin doonaan ayaa garanayaan anigu waxaan aaminsanahay run ahaantii waxqabadkeeni inuu weli u sii dhamaayo reer Garissa oo ay u baahan yihiin usoo noqon baan aaminsanahay maxaa qabyo ka hoos leedahay aleelahay dadka reer Garissa weli waad u baahantahay inaad u qabato may dadka reer Garissa hadda waxa qabyo aan dareemayo ma jiro laakiin waxaan dhihi lahaa on reer Garissa yaa mar labaad lagu sirin ama yaa loogu sheekaynin qabiil iyo waxaa isbahaysi iyo wax macnaan lahayn bal waa la ilbaxay wax baa la ogaaday Soomaalida waxay dhihi jirtay balaayo ma fiicno wax aragna wax ma reer Garissa hadda wax baa la arkay waa la isbartay marka waxaan dhihi lahaa reer Garissa indhaha kala furan yani qabiil iyo isbahaysi iyo hadallo iska kutarkuteen meelaha laga hadlo yuusan u noqonin maarta wax ay dad ku doortaan bal ku doortaan wax qabad iyo maarta wax gal ku doortaan siyaasadaada qabiilka ma ka maranta kulli sanad ani aan aaminsanahay reer Garissa haddii maanta aan dhaho taqyiimiya arrintaas qayb weyn bay iga siinayeen inay siyaasadeyda aysan ku salaysnayn qabiil keli bal ay ku salaysan tahay cadaalad iyo waxqabad aan u qabtay anigu waxaan umeynayaa markii meeshan aan soo galay xataa sidii aan u qaybiyey wasiiradaha iyo aan u kala qaybiyey ilaa marka ugu dambeysay reer Garissa waa garanay wax lagu sheekeynaya ma ummadda maanta social media-gan iyo wax kasta ayagaa maanta kaa badiyaaba marka maanta waxma reer Garissa iguma nacayo nadiif waa qabiil iyo qabiil buu dabada kula jira ma liguma taqyiiminayo waxaa lagu taqyiimini nin oo la soo arkay wuxuu yahay cadaaladiisa la soo arkay waxqabadkiisa taqyiimka aan reer Garissa ka rajeynayo oo welibana aan isleeyahay way igu taqyiimaan kaas weeyaan dhaqanka Soomaalida iyo deegaankan hadda ka jiro waxaa asal u ah in qofku qabiilkiisa uu ka soo baxo waxaa jira kulamo badan oo sameysay qabiilkaagii aad jufada ku ahaa waad ka soo gudubtay Soomaalida kale ka waran kulamadiinii iyo tacaamulkiina Soomaalida kadib waan kolleyba aadan iskaga warhayna waana is arki doonaa waan soo mari doonaa kulan shirar iyo maarta iyo kulamo waa loo qaban doonaa dad isku cusubnahay ma aha hadda qoysaska Garissa dego intooda badan dad isku cusubnahay ma aha waa dad horena isku soo aragnay haddana waa sii arki doonaa waan intaan kuu sheego dadka ayaga hadda maanta ka hormarayinba xagga yani rabitaankooda maxaad leedahay wareysigeena waa ka tagnay oo dadweynaha u sheegi lahaa adigoo toos u fiirinaya kaamirada may waxaan umeynayaa waa soo gabagabeynay keli haddaan mid ku noqdo dadka walaalaha siyaasiyiinta ee hadda kursigan u tartamahayaan horta hal oga laba shay horta aan meesha xisaab ku darsano mid horta waxaa weeyaan horta waxaa kan waa wax ilaahay uu qaybiyo ciduu ilaahay siiyo unbaa horta wax noqoni marka annaga ayaan noqonin dad maaragtay dadka u horqaado inay waxaan isku naco la isku herdiyo la isku colaysto yaasan noqonin way jirtaa dad in markii ay kursi rabaan inay abaabulaan fitna iyo dagaalo iyo ay abuuraan waa caadi weeyaan waa la aqaanaa laakiin waxaan umeynayaa reer Garissa qoysku rab ha ahaado ayaga reer Garissa waxaas ha ka weynaadaan hana iska ilaaliyaan طبعا أنا أبقى ضدك ترتمين إن إلهي كبقان أو ضدوينها على سكودرين حدا ما عنده ماشي مكل هلاي أو رجع قارئ هلاين هو بلقدر الشيء هي هو كاسمع ماشي ما يهود بدي طلع هو كيا لقدر حتى هو كل أمكان الشيء مركب وحباس إن لقفير صدق أو إسلام المدي إلهي نقدر جماعة الإلهيو ضدك ندي جود عن معرفة أو سياسة عن لقوا بنيسنين هولها أنباء مهمة إن هذا ضدك أنا أي قلوبتي إيجابية أوكي ugu dambeyntii su'aal kulmiye ku saabsan infrastructure-kan dadaalkan haatan lagu casuumay waa markii ugu horeysay oo aad imaatay TV-gan idaacadan isku dhafka sidaad u aragtaa maxay ka keeni kartaa ama ka qaban kartaa horumarka gobolka run ahaantii aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay inaan kulmiye TV station-ka iyo radio aan soo dhex istaago waa markii ugu horeysay aad iyo aadna waa ii cajab geliyay shaqo fiican baad qabateen allaha barakeeyo shaqo aad iyo aad ugu farxad qabateen waana waxyaabaha run ahaantii maxaan dhihi karaa loo baahan yahay oo localka ah
waa local initiatives oo aad u weyn weeyaan oo weliba support u baahan anaga khaasatan dadkeena hadda siyaasiyiinta iyo inaan shishmada noocan oo kale iyo juhdiyaha noocan inaan garab siino waa ku qasbana marka Allah ina barakeeyo waana hawl lagu farxo weeyaan waan isleeyahay insha Allah taala anagana garab ayayna qaan ilaahay insha Allah taala aad ma hasantiin daawadayaal ama dhageystayaal meel walba iyo goob walba naga daawanayeen barnaamijkeeni fadhiga diiran oo martino ugu ahaa Governor Nadiif Jaamac Aadan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa si toos ah idin kala socoteen idaacadda kulmiye iyo TV-ga barta Facebook iyo YouTube-ka aan ku leenahay waxaan leenahay daawasho wanaagsan qaybaha dambe ee barnaamijka wuxuu noqon doonaa mid sida toos ah aan gabanaro kale iyo mas'uuliyiin kale iyo cid walba oo doonayso in barnaamijkan ay ka qayb qaadato halkan aan ku soo dhaweyno